markana dhuusamareeb xildhibaan mahad salaad ayaa markii saddexaad saakay ku guuleystay doorashada kursiga Hope 147 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaana ka tanaasulay doorashada kursiga Shamsu Cali Maxamed oo mahad salaad kula tartamaysay doorashada kursigan iyadoo qaab gacantaag ah ee ergada doorashada kursiga oo gaaraya 101 ee marti dambe uga codeeyeen xildhibaan mahad salaad hadal kooban uu jeediyay doorashada kadib ayaa ku sheegay in uu ku faraxsan yahay natiijada doorashada isagoo u mahad celiyay ergada iyo guddiga doorashada kursigan ayaa ka mid ahaa kuraasta sida weyn isha loogu hayay iyadoo laba ka mid ah musharaxiinta ku loolamaya kursigan ay sheegeen in loo diiday inay ka qayb galaan tartanka wasiirka qorsheynta Galmudug Cabdinaasir Geele iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Cali Yare ayaa madaxweynaha Galmudug ku eedeeyay inuu kursigan u xiray xildhibaan mahad salaad ilaa hadda madaxtooyada Galmudug kama jawaabin eedeynta loo soo jeediyay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor dhanka kale waxaa xasuusnaa in maalintii xalay ahayd bartiisa Facebooka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Cali Yare uu ku soo qoray erayadaas uu ku eedeynayay in madaxweynaha Galmudug Qorqor oo kursigaas u xiray xildhibaan mahad salaad isagoo u diiday inay la tartamaan asiga iyo wasiirka qorsheynta Galmudug Cabdinaasir Geele dhanka kale Cali Yare ayaa xalay wuxuu taleefanka uga hambaliyay mahad salaad isagoo uu sheegay in uu la shaqeyn doono uuna garab istaagi doono xildhibaanka maadaama uu madaxweynaha Galmudug ka hor istaagay safarkiisa uu ku tagi lahaa dhuusamareeb oo maanta ula tartami lahaa mahad salaad halkaan iga daawanaysiin waa wanaagga qoyska alla ugu barteen wararka ugu dambeeyay filantaano cusubta subscribe dheh maalintana ku waanaato